Hey, y'all, come look at this. دان دولة قبن أنا قا قبنين كيف كتير كانوا فريسنا يا والله المال ما يالك ساري dawladaha marka maanta dhahayo muxuu ahaayay transparency jiro wanaaga jiro horumar maxaan ku raad la gaaray fidnay ka talinayaan aan leenahay dawladaha saas ka shaqeynayo lacagta ay sheegayaan waa mid Soomaaliya hoojinaysa mid Soomaaliya wax u talaysa ma waxaan ka afeefanayaa marka aan taariikhda iyo research ka hadlayno dad gaar ah uma jeedo urashada SSC ee khaatumo وكادرين تكعانك وكادرين تكعانك haddii la itaabto cali ahay jir ahaan qarax qoto yiraahdaan qarax qoto hadii la yiraahdo magacaas horta magacaas markii la yiraahdo waa magaca ugu saameynta badan marka kuwa dhahaaya maaragtay cali dhagta u taagan oo hadduu xitaa banoon ciyaar waa arka sawirada la soo geliyay waa arka sawirada la soo geliyay ninkii illa shub ninkii lugla shub ninkii gacan la shub dhaqaaji had xariirin ilaa way luglaa waa laga marrabay marka waxaan leenahay kafa ku joogsada meeshii waxaan leenahay stop خط أحمر يا أرنتا we never accept that never ever والله ثم والله هذا سنجوجين وبحنين لن نقبل ولن نقبل waxa dadka qaarkiis loola dhaqanayo cid noola timaado awood ma u leeyahay inaan garoonkan ka celino soo miyay karno ya allahumma darajo kasta ha sheegto qaab awoodeed haddaan dareerno waxaan malaynayaa waxaan wadano ma ahan bakoorooyin ma aha soo saas ma kalma aniga dastuurka Soomaaliya waxa ku taal qofka marka la doorto waqtigiisu waa 4 sano madaxweyne marka la doorto waa 4 sano hadda 2 sano joogay labadii kale ay gooyo talo dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa inuu weyn ciidamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuurade marka hore ciidamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waan idinka raali gelinayaa I love Muqdisho xalna waan siinay فرماته وفريستي فرماته وفريستي كرب كان لقطوه لكي كريوه شخصيا أريد أقول يا ملاما واي فرماجة إيه أبريل نوع إيه ري أغسطس نوع إيه لابد كنا ليه تمك نكو كم بيت كجري أبريل يا نوصل تقولي سنة سرقة عبد الكريم أرجع مركز الله أكبر waxaad tahay nin aad u aamusan laakiin nin aad u xigmad badan soma hadee runtaada marka dabeecadahaan lagu eego oo cabdikariin adigu u taqaanid iyo sida dadku kugu yaqaanaan way kala bedelan yihiin marka Kismaayo markaan soo galaynay waxaan wadanay meyd iyo dhaawac nin marka Starbucks fadhiyo cafe cabay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray inuu maanta ilaa wadanka oo dhan baan dib ugu celinaya waa ayaan daro dawlad yar baan ahay kursigaygaasaan haystaa meeshaan doonaan la mari heshiiskaan doonaan soo galaya meeshaan doonaan xoolo u doonanaya islaan uunsan jirin hadday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kalu marayaa hadal mareed mudane hadalka mareed aad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey
mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo magaaladan 2009 dadkii joogay inta ka baxeen ay ceelasha biyaha tageen maxaa dhaca ciidamada Itoobiyaana soo galay waxay go'aansadeen inay bixiyaan ilmahooda waxay geysteen ceelasha biyaha magaaladan waxay kula dagaalameen ciidamada Itoobiyaanka ilaa markii ugu dambeysay ku guuleysteen inay ka saaraan waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynaha sharafta leh tiimkiisa dadkan weli ceelasha biyaha waa bannaanta waan aadi karaan yaan lagu kalifin shacabka beledkan joogo oo beledkan ku nool inay dhib ka shaqeeyaan annaga dad badan oo culimmada ka mid ah gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul caqli wa diin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinayn kitaabaha jawaab kala soo baxaan bisadahdiisa maanta waxay ka nasiib badan tahay qofka muqdisho ku nool waxaa la yaab leh dowladda maanta maxamed cabdilaahi farmaajo iyo khayre ee xamal ka dhisan ilaa maalintii la duurtay ilaa maalinkaa maanta ah waxa ay weerar joogto ah oo qaawan oo dhinac walba ku haya oo ilaa hadda ay ku hayaan qaranka Soomaaliya kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dowladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qaraxa ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda puntland baa wadayso wadka maanta la qarxiyay waxaana wadaa dowladda farmaajo ee waxa soo taageerada siiyay ayaa fidmadaas oo dhan wada oo markay intaas oo dhan ka dagaalamaysa waxay ka wadaa way waxa soo tababar kuwa ku soo tababaraysa ku soo diyaar garoobisa Soomaaliland bay soo diyaartay colaadeeda oo ay ku soo maqantaa Soomaalilandna waa ku gaamurtay inay cadawga iska xirso diyaar baaran waa aragnaa waxa soo wada farmaajo waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysaa ila meeraysadii way soo dhammaanaysaa wafdi u diray wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo hogaaminaya xildhibaan Xanad Xaashi Axmed iyo Mujaahid Faansiya ayaa gaaray dooxooyinka Gambadho ku habsaday ayaa caab u tiro badan waxaana goobta ayaa ka kicinay ciidamada Soomaaliland أيوه وحوي عالم كوالا قمنا Soomaalida u baahan dhammaan maanta dambaysan caalamku waa laga cunaa marka ayuhu siisaba xunna hadday taano waa xunna waan tajrubaynay hadda manamana waan shiilnay sida manaha aad ku arkayseen baraha bulshada marka shiilana waa maxaan ku radaa waa ku qadaynay waan ku quraacnay